wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay. Haddaba waa barnaamijkeena habeenimo talaada Arbaca ay soo galayso taariikhduna waa 23 bisha 6 2026. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn annagoo idinku soo gudbin doona macluumaad kala duwan. haddaba intaynaan barnaamijka galin maanta waxay ahayd maalinimo talaada ah kanaalkeena qisooyinka Nadaara 2 ee YouTube-ka oo aan soo galino qisada talaadada iyo jimcaha qisooyin aad u xiiso badan ayaynu maanta soo gelinay qiso aad cajiib ah. haddaba dadka qisooyinka jecel iyaguna halkaas ayay kala socon doonaan. haddaba aynu soo noqono barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan ayaa wuxuu ka hadlay dawlado inay jiraan aan ogolayn heshiiska muddada ay ka shaqeynayeen Iran iyo Mareykan dhexmaray. dhanka kalena wuxuu ammaanay dawlado isla gobolka ah oo kaalin weyn ka qaatay heshiiskan oo ay dhab ka ahayd in heshiis la gaaro. haddaba durbaba markii uu ka hadlay arrintaas dawladihii heshiiska kaalinta ka qaatay wuu magacaabay halka kuwa kale uu daboolay magacooda. laakiin falanqeeyayaasha iyo dadka iyagu wax ka baaraandaga arrimahan bariga dhexe ayaa waxay sheegayaan waxaa dhici karta inuu ula jeedo dawladahaas. haddaba marka waa arki doonaa ra'iisul wasaaraha Pakistan warka uu sheegay. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan wuxuu yiri waxaa jira dalal doonaya inay carqaladeeyaan heshiiska. ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa wuxuu sheegay ninka la yiraahdo Shahbaz Sharif waxaa jira ayuu yiri dhinacyo markaasi doonaya inay carqaladeeyaan heshiiska waxay faafinayaan shaki waxayna muujinayaan niyad jab. waxaan u mahadcelinayaa amiirka dawladda Qatar iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga iyo madaxweynaha Turkiga iyo waliba madaxweynaha dalka Masar taageeradooda ku aadan nabadda gobolka bariga dhexe. waxaan rajaynayaa in heshiiska isfahamka uu horseedi doono nabad ka dhacda gobolka oo dhan. heshiiskan isfahamka kama hadlin arinta gantaalada balastiga Iran. laba heer oo aan la aqbali karin ayaa jira waana wax macquul ah in markaasi qolo loo ogolaado inay haystaan gantaalo balastig qolona aan loo ogolaan oo la diido. taas aqliyada ayaa diidaysa in Iran lagala hadlo in markaa gantaalaheeda balastiga ay baabi'iso. taasna macquul ma ahan ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dawladda Pakistan. waxaan rabnaa ayuu yiri inaan sii wadno doorkeena ilaa laga gaarayo nabad waarta. dagaalku wuxuu burburin karay wax walba. waxaan ku ammaanaynaa taageerada hogaamiyaasha dalalka gobolka qaarkood oo ku aadan gaarista nabadda. fariinta aan dirayno hogaamiyaha sare ee Iran ayaa ah in wadankiisa uu gaaray xabad joojin iyo heshiis isfaham isla markaana uu ilaaliyay sharaftiisa. marka ra'iisul wasaaraha Pakistan si dhab ah u hadlay wuxuu yiri dawlado gobolka ah oo uu tilmaamay Qatar, Sacuudiga, Turkiga iyo Masar wuxuu yiri nimankaasu kaalin weyn ay qaateen nabadda iyo in markaa la gaaro. qolo gobolka ah waxaa jirta ka hadlaysaba gantaalaha balastiga Iran iyo hadda carqalad ku wada heshiiska inay wax carqaladeeyaan iyo marka dadka wax falanqeynaya waxay labo ka ula jeedaa Israa'iil oo cadaysatayba mowqifkeeda inay ka soo horjeedo heshiiskan iyo qolo halkan wuxuu qarsanaya laakiin kor lagala socdo Imaaraad la yiraahdo ayaa marka waxay leeyihiin dadka wax falanqeynaya ayuu ninkan ku duraya dawladaha gobolka ee iyagu diidan heshiiska. qoladaas waa yuli qoladanna way nagala shaqeeyeen labadan dawladood ee maaragtay khaliijka ku jira ee Qatar iyo Sacuudiga iyo dawladahan kale ee Turkiga iyo Masar. intaas uu u mahadceliyay. qodobka halkaas kaga gudbaynaa. qodobka labaad ee barnaamijka caawa aynu ku soo qaadanaynaa wuxuu yahay hogaamiyaha Xisbullah ayaa maanta kelmad jeediyay hadal u jeediyay. hadalkiisa uu jeediyo maalinta Cashuura khudbad uu ugu talagalay
ayuu jeediyey marka muxuu leeyahay wuxuu leeyahay meeshan wadda aan ahayn inaad iskaga baxdaan dhulkeenna ma idiin furna Israa'iil hadaatiin meel kasta taga Washington heshiis ku galnay ammaan iyo war wuxuu dhahay tallaabo dhulkeena hadaa ku jirtaan waa idin la dhacaynaa baash nabad haddii meeshaan laga rabo nimankaan dhulkan ha nooga baxeen dhulkooda ha tageen ciidankan Lubnaan ee dawladdan annaga martay heshiis soo galna leen xuduudka ha xireen xalal hela markaas laakiin inta nimankanu ay gudaha rabaan inay ku gorgortabaan Lubnaan iyagoo jooga wallahi ka taanay sooyanay hadda annaga xabad joojinta waa ilaalinaynaa laakiin xabad joojinta waxa muhiim ah inay nimankanu meeshan ka tagaan insixaab al raba wada kale oo idin banaan mala waa ina baxdaan haddaba markaan idin tuso hogaamiyaha Xisbullah wadaadka la yiraahdo Naciim Qaasim wuxuu yiri khiyaar aan ahayn hortiin ma yaalo Israa'iilay inaad ka baxdaan Lubnaan maahane doorasho kale oo idin banaan ma jirto leeyahay inaad isaga baxdaan Lubnaan maahane xogayaha guud ee Xisbullah Naciim Qaasim ayaa maanta talaadaha wuxuu sheegay in Israa'iil ay tahay inay isaga baxdo si dhammaystiran dhulka Lubnaan iyadoo waliba jadwal zamani kanu marka sheekaas marka halkaas joogtaa dalkeena nooga bax hadda joogtaan meeshan xabad joojin ma jirayso gurigiisa ku jirta ma ka yeelayno halkaas marka waa hadalka caawa uu jeediyay ninka la yiraahdo Naciim Qaasim dhanka kale qaramada midoobay waxay sheegtay 11,000 badmaaxiyiin oo maraakiib ku kor go'doonsan oo dhibaato ku haysata badda dusheeda oo qaar xanuunsan yihiin oo meelay maraan ay waayeen in hadda ay bilowday qaramada midoobay maadaama heshiis dhacay in dadka la soo daabulo badmaaxiyiinta ah oo maraakiibta la socda 11,000 oo qof ayaa halkaa ku go'doomay oo kulligood dadkii maraakiibta la socday haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray dhaqdhaqaaq ay wado qaramada midoobay ayaa jira oo ah in la soo daabulo 11,000 oo baxaar ama dadka badmaaxiyiinta ah oo ku xandhiban marinbiyoodka Hormuz haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay ururka badaha caalamiga ee taageersan qaramada midoobay ayaa sheegay inay bilaabayaan inay soo daadgureeyaan 11,000 badmaaxiyiin ah oo markaa ku go'doonsan marinbiyoodka Hormuz muddo toddobaadyo ah halkaasi dhibaatooyin ay kala kulmeen oo wadada ay ku xirantay iyadoo sababna ay u ahayd dagaaladii iyo dhibaatooyinkii gobolka ka jiray inay markaa la dhaqaaqi waayaan marka qaramada midoobay xilaa 11,000 oo qof ayaanu halkaa ka soo daabulaynaa haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa intaynu barnaamijka ku jirnay wixii akhbaara ee soo dhacay haddaba wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saacir ninka la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay Xisbullah in ay hubka laga dhigo waayuli waxayna dano ugu jirtaa Lubnaan kulaha iyo Israa'iil labadaba Xisbullah marka hadaanay hubka dhigin Israa'iil ka tagi mayso meeshan Israa'iil iyo Xisbullah waa laba kala daran waay marka meesha wax ka soo dhow male Xisbullah waxa leedahay nimankan hubkeena waxba idinka gelin nooga baxa wadankeena nimankan waxay leeyihiin meelaan ka baxna male ilaa nimankan hubka laga dhigo yaa ka dhigaa marka hubka meesha lugooya socota marka waa la isfiirsanayaa marka sheekadan waxa leeyahay xabad ma hurto waay nimankanu mar kale waa isku bilaabi doonaan hadday isku bilaabaanna heshiiskii weynaa haddana meeshii uu ka furanayo xaalku marka meel xaliso maraya marka sidee hubka looga dhigaa Xisbullah si hubka ma dhigaysa Israa'iil oo dhulkooda ku jirta oo Israa'iil hore ay u sheegtay oo ay tiri Israa'iil weyna raadina Lubnaan tani waxaan iyo dhan waan qaadanaa nin dhulkaaga inaan qaataan rabaa hore u soo yiri oo haddana kugu soo socda see adiga hubkaaga u sii dhigay dhika uu ka adkaan karaa xoog kugu qabsan karaa hubka dhigisu kugu sameyn karaa ama waa ku dili karaa waa la gar laakiin adoo fayo indhaagu soo taageen hubkaaga iska dhig maxay taas marka arkaas isaguna wararka cusub ayuu ka mid yahay haddaba barnaamijkaygii waa naga intaa caabinimo waxaan mar kale idin xusuusanayaa dadka jecel
qisooyinka channelkeena qisooyinka oo aan soo gelino talaadada iyo jimcaha qisooyin cusub inaynu maanta soo gelinay qiso kale halkaas ayaad ka daawan doontaan barnaamijkaygii guud ahaana waa naga intaan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo